بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. يقول رب العزة جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. walaalayaal, waxaanu maanta jecelnahay in sha allahu tacaala oo ah maalin talaado ah kuna beegan 14 February. waxaanu jecelnahay inaanu ka hadalno maanta waxa ka socda magaalada Muqdisho iyo daafaha caalamka qaybo ka mid ah. waa maalintan la yiraaho Valentine Day. Valentine Day bal waxa islaamku uu ka qabo iyo aragtida islaamka ee ku waajahan Valentine Day iyo taariikh ahaan bal meesha uu ka yimid Valentine Day. walaalayaal, Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inooga digay gaalada mar walbaba inaananu ku dayanin ayuu Allah nooga digay subxaanahu wa tacaala. waxauna alle subxaanahu wa tacaala inagu booriyey in sharafteenna diineed iyo mideenna dadnimo iyo dhaqankeenna islaamka aanu ku dheganaano. alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ha ka dhiganina dadka aniga cadowgayga ah adinkana cadow idin ah kuwa aad xiriirisaan, ha ka dhiganinuu alle leeyahay subxaanahu wa tacaala. idan aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay subxaanahu wa tacaala cadowga ilaahay waa kuwa diidan jiritaanka alle, waa kuwa diidan cibaadada rabbi, waa kuwa gaalada ah. dadka aniga cadowgayga ah adinkana cadow idin ah ha ka samaysanina saaxiibo, ha ka samaysanina kuwa aad xiriirisaan ayuu alle leeyahay subxaanahu wa tacaala. lidaalika Valentine Day waxa wada walaalayaal oo asaasay oo idibada u taagay ama waxa af Soomaaliga lagu yiraaho maalintii jacaylka ama ciid luqada carabiyana lagu yiraaho xubbul yawm alcaalami, maalintii jacaylka ee caalamiga lagu yiraaho. waxa asaasay oo ka dambeeya waa dad gaalo ah. gaalada in lagu daydana islaamku wuu xarimay, waa xaaraan oo ma bannaana. maxaa yeelay xataa halhayskooda xataa in qofku uu halhays ka dhigto oo oraahda gaaladu ay ku dhawaaqayaan isaguna uu halhays qofka muslimka ay ka dhigto, xataa islaamku uu ka digay. waxaa jiray kelimo halhaysa xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam yahuuddu ay dhihi jireen marka ay yimaadaan majaalista iyo fadhiyada nabiga sala allahu calayhi wasalam, waxay adeegsan jireen ereyga raacina oo marka iyagoo ereyga ay ula jeedaan macno khayaano ah. markaad fiirisid ereyga raacina muuqaalkiisu wuu toosan yahayo waxa weeye noo naxariiso oo xaqeenna ilaali oo na ixtiraam, waa sidaa macnihiisu luqa alcarabiya. laakiin iyagu waxay ula jeedaan ereyga raacina luqatulyahuud wuxuu ku yahay cay, qof doqona ayaa la yidhaha. alle marka subxaanahu wa tacaala halhayskaas kelimada yahuuddu ay isticmaali jirtay oo markii xataa dhinac kale loo fasiro wanaag noqonays, laakiin afka yahuudda markii lagu fasiro cay noqonays. dadka mu'miniinta ilaahay waa ka nahiyo, waa u diido. ilaahay wuxuu yidhi: laa taquuluu raacina. dadka mu'miniinta ahow ha isticmaalinina ereyga yahuuddu uu isticmaalo oo ah raacina. marka halhayska yahuudda iyo halhayska gaalada hal kelimaba allah ka dhigo ayaa alle xarimay oo xaaraam alla uu ka dhigay subxaanahu wa tacaala. maxaad u malaynaysaa marka mahrajaankooda iyo ciidahooda iyo fantasiyaha ay dhigayaan gaaladu in dadkii muslimiinta ahi ay qaataan ay ka soo minguuriyaan oo hoteelada lagu dhigayo oo guryaha lagu dhigayo oo facebooka laysaga tahniyadaynayo
maalintii jacaylka maalin la yidhaha laysaga tahniyadaynayo maxaad u malaynaya dhaqanka noocaas oo kale ah qofkii gaal ku raaca. nabigeennuna sala allahu wasalama wabaaraka calayh xadiiskii abu daawuud uu sunankiisa ku warinayey ayuu wuxuu ku yidhi man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum, qolo qofkii isku ekaysiiya iyaguu ka mid yahay, qoladaasuu ka mid yahay. lidaalika haddii markaa maalintii jacaylka aad ka qayb qaadatid walaalkayga muslimka ahow iyo walaashayda muslimadda ahow, maalintii jacaylka haddii aad ka qayb qaadatid waxay ka dhigan tahay in aad matashay kana mid noqotay dhaqankoodiina aad jilayso dad gaalo ah oo cadowgii ilaahay ah. waxaa xataa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayey ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu xataa nebigu diiday oo nebigu uu xarimay salaanta gaalada xataa in la adeegsado. yahuud iyo nasaara salaantooda iyo habkay isku salaamaan xataa ha isku salaamin inuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxaa imaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka uu ku wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa mina man tashabbaha bigayrina annaga naga mid ma aha, ummaddaydana kuma jiro, ummaddaydana wuu ka baxay qofkii isku shabbaha dad aan annaga ahayn. waa gaaladuu ula jeedaa nebigu sala allahu calayhi wasalam. dad aan annaga ahayn qofkii dhaqamadooda isku shabbaha sida ciidan la leeyahay maalintii jacaylka la xusayo oo kale ummaddayda ka mid ma ahan buu yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh. walaalkayga muslimka ahow nafsaddaadii ma waxaad raalli uga noqotay in nebigu kaa beri noqdo adduuniya aakhiraba uu kaa beri noqdo nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh, oo ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam aad uga baxdo taageero aad u fidinayso dhaqamada gaalo, isu ekaysiinayso dhaqamadii gaalada. ma waxaad naftaadii ku qanacday miskiin yahow inaad ka baxdo ummaddii nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo nebigu uu kaa beri noqdo. nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskaa tirmidi wuxuu ku leeyahay laa tashabbahuu bilyahuudi waannasaara fa ina tasliima alyahuudi alishaaratu bilasaabic wa tasliimu annasaara alishaaratu bilakuf. nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskaa tirmidi wuxuu ku leeyahay ha isu ekaysiinina hana isku shabihinina yahuuddii iyo nasaaradii. xataa salaantooduu diiday nebigu sala allahu calayhi wasalama in habka yahuudda iyo nasaaradu ay isku salaamaan, in dadka muslimiinta habkaas ay isku salaamaan ayuu diiday nebigu sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa ina tasliima alyahuudi alishaara bilasaabic. yahuuddu marka yacni isu salaamayaan habkay isku salaamayaan waxaa weeye faraha unbay taagaan oo farahay taagayaan oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ma is yidhaahaan oo habkan ducada ma yaqaanaan mana isticmaalaan, farta unbuu saas kuugu taagi ninka yahuudiga markuu ku salaamayo. wa tasliimu nasaara alishaara bilakuf, qolada kirishtankuna salaamtooda markay salaamayaan waa inay calaacasha sidaa kuugu taagaan. marka salaamta noocoodaas oo kale ah ha isticmaalinina oo ha adeegsaninuu yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. walaalayaal marka waa mangaabnimo, waa caqli daro, waa qilatu athaqaafa alislaamiya, waa qilatu alxadaara, waa hermagaalnimada oo qofka ku yar, waa caqliga oo qofka ku yar, waa shakhsiyaddii diineed iyo dareenkii diineed oo ka dhintay qofka maanta xusaya ciiddii jacaylka xusaya. mangaabnimo wood maxaa yeelay waxaa ku rumoobaya qofkaas xadiiskii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu yidhi xataa wax foolxumaa gaaladu hadday samaynayaan waxaa iman doonuu yidhi dadku dayda, wax laga yaqyaqsado xataa haddii gaaladu ay sameeyaan waxaa iman doona dadku dayanaya. nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi xataa low dakhaluu xujra dabbin la dakhaltumuuh. aakhiru zamaanka waxaa iman doonuu yidhi gaaladu haddii xataa god abeeso ay galaan, god abeeso ma wax la galaa, waa wax yacni ilaahay laga magan galo, god abeeso gaaladu hadday galaan xataa waad la geli doontaan buu yidhi. sida diintu iyo qiirada diineed iyo dhaqanka islaamka aad u dayacaysaan. waxaa imaamu albayhaqi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa sunankiisa uu ku wariyey min xadiidi cabdillaahi bni cumar. cabdullaahi bni cumar inuu dhihi jiray man sanaca nayruusahum wa mahrajaanahum wa tashabbaha bihim xataa yamuut wa huwa kadalika xushira macahum yowma alqiyaama. cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi sida bayhaqi uu sunankiisa ku warinayo
wuxuu yidhi gaalada fantasiyahooda iyo ciidahooda iyo dabaaldegyadooda qofkii kula dabaaldega sida dabaaldega maanta loo dabaaldegayo oo kale maalintii jacaylka loo dabaaldegayo oo sidaa qofku ku dhinta maalinta qiyaamaha safka gaalada ayaa lala soo shiriyaahu yidhi cabdullahi ibni cumar isagoo gaaladii maaragtaahay ku saf noqday oo safkii muslimiintaba aan ku jirin ayaa lasoo shirinaya lasoo saaraya maalinta qiyaamaha walaalkayga muslimka ahow iyo walaashayda muslimadda ahay ma waxaad raalli ku noqotay markaad geeriyooto safka gaalada in lagugu soo saaro oo iyaga safkooda aad martid oo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam safkiisii lagaa leexiyo oo safkii asxaabta lagaa leexiyo oo safkii muslimiintii walaalaha ahaa lagaa leexiyo miyaad saas raalli ku noqotay walaalayaal marka diinta islaamku way ka digtay mana bannaana in la xuso maalintii jacaylka maalin la yidhaaho maxaa yeelay maalinta jacaylka walaalayaal haddii la xusayo alle subxaanahu wa tacaala isagaa nagu booriyey dadka muslimiintu inay isjeclaadaan cadowga ilaahayna yacni laga digtoonaado oo cadowga ilaahay la naco alle subxaanahu wa tacaala isagaa nagu booriyey ilaahay isagaa yacni in la isjeclaado oo laysku dhimriyo oo laysku tanaasulo isagaa alle nagu booriyey subxaanahu wa tacaala magaalaa hadda annaga jacaylna baraysa walaalayaal waxyaalaha lala yaqyaqsado waxaa ka mid ah oo maangaabnimada ah magaalaa maanta ku baraya inaad maaragtahay walaalkaa jeclaatid magaalaad maanta ku baraya inaad xaaskaaga jeclaatid magaalaad ka qaadatay inaad hooyadaa jeclaatid magaalaa kugu baraarujiyey inaad walaalkaa jeclaatid war diinteenna islaamka qur-aanka kariimka ah oo 1400 oo sano ka hor soo degay ayaa kuu tilmaamay muslimiintu inay isjeclaadaan oo waalidkaa aad jeclaatid oo qaraabadaada aad jeclaatid oo dadka muslimiinta walaalaha guud ahaanba aad u ducaysid meel walba oo adduunka ay ka joogaan 1400 oo sano ka hor ayaa qur-aanku kugu booriyey oo alla uu kugu booriyey subxaanahu wa tacaala maangaabnimadaada marka waxa weeye ma maanta gaal kugu boorinahayaa uu ku leeyahay maalintii jacaylka waxaan rabnaa marka bal inaan ka hadalno maadaama aanu ogaanay islaamku waxa uu ka qabo in ciidaha gaalada iyo dabaaldela gaalada laga qayb qaato inay xaaraam tahay maadaama islaamku inoo sheegay bal waxaan rabnaa inaan ka hadalno lamxa taariikhiya livalentine day bal taariikh ahaan meesha uu ka soo jeedo valentine day bal inaan ka hadalno maxaa yeelay dadka intooda badan waxa weeye ma akrin taariikhda valentine day ma aysan akrin meesha ay ka soo jeedaan iyo halka laga soo minguuriyana ma garanayaan intooda badan dadku facebookyaday ku arkeen ama idaacadahay ka dhegaysteen iyagoo la leeyahay yacni 14 February ayaa waxaa la xusahayaa maalintii jacaylka laakiin yaa la xusahaya xaggeese laga soo gaaray yaase aasaasay taariikh ahaanse goormaa la aasaasay horta ereygan la leeyahay valentine ereygan ah ereygaas waa magac uu iska leeyahay nin baadari ah magac uu iska leeyahay idan marka valentine marka la leeyahay qofka xusaya maalintii jacaylka ha ogaado waxa ku hoos lamaanan oo bustaha hoostiisa ugu qarsan oo gaaladu ay kugu qarinayaan valentine waa xuskii baadariga la yidhaaho valentine maxaa yeelay gaaladu sida iyagu ay aaminsan yihiin ninkaa baadariga ah ayaa aasaasay ay ku leeyihiin jacaylka marka waa waarin iyo baahin la fidinayo magaca gaalka baadariga ah oo kaniisadda ka shaqayn jiray in magaciisa la fidiyo dadka muslimiintana laga gado nin wanaagsan gaalkaasu inuu ahaana dadka muslimiintu ay u arkaan oo jacaylkaba isagu uu aasaasay way xigmada gaaladu ay ka leeyihiin waana waxa ay ku dagayaan dadka muslimiinta ah lidaalika marka waxaa jiri jiray ninkan valentine la yidhaaho oo baadariga ah wuxuu noolaa ninkaasi 270 taariikha miilaadiga dhalashadii nabi ciise ka hor ayuu horta ninkani noolaa waa 270 taariikhu markuu marayay dhalashadii nabiyullaahi ciise ka hor xilligaas waxaa jiri jiray nin imberaadoriyad dhistay ama dowlad weyn oo imberaadoriyada romaaniga oo Greek ah nin madax ka ah ayaa xilligaa jiri jiray ninka madaxweynaha waxaa la dhihi jiray Claudius ninka Claudius oo imberaadoriyadu weyn xukumayo dowlad weyn xukumayay Claudius wuxuu ku jiray oo uu galay dagaal qaraar oo la galay dowlad kale oo deris isaga la ahayd dagaalkii yaa lagu jabiyey ninkan la oran jiray Claudius
dagaalkii markii lagu jebiyey ayuu shacabkii isagu uu hogaaminayey wuxuu ku yidhi guurku waa xaaraan uu yidhi inta dagaalku uu socdo dagaalku intuu socdo oo dowladda kale aan ka jebinayo dhallinyaradu isma guursan karaan buu yidhi ma la isguursan karo leanna wuxuu yidhi waddankiiyaa khatar ku jira sidaa awgeed wuxuu joojiyey guurkii iyo arooskii ayuu joojiyey ninkaa la odhan jiray Faladius midda kale wuxuu yidhi ciidanku hadday guursadaan tabartoodaa daciifaysuu yidhi waxaan doonayaa hori ninka askariga in muruqiisa iyo awooddiisu ay dhisan tahay hadduu guursado muruqiisa iyo awooddiisa ayaa daciifaysuu yidhi Faladius ka bacdi markii arrintaasi muddo ay socotay ayaa waxaa arrinkii ka xanaaqay ninkan la leeyahay Valentine ninkan Valentine la yidhaah oo xilligaas isaguna baadari ahay oo kaniisad ka shaqaynayay ayaa arrinkan ka xanaaqay markaasuu wuxuu sameeyey kaniisadduu si qarsoodi ah wuxuu bilaabay inuu dadkii isku baahan oo isjecel inuu isku guuriyo oo kaniisadda dhexdeeda iigu imaada uu yidhaaho maadaama madaxweynuhu arooskii iyo guurkii uu xarimay anaa si qarsoodiya isugu kii nikaaxinaye labadii isjecelba kaniisadda ha iigu timaado saasuu dhihi jiray Valentine ka bacdi marka arrinkii wuxuu gaaray ninkii la odhan jiray Faladius oo imbiraadoriyadda markaa xukumayey madaxweynihii ayaa waxaa loo sheegay ninkan Valentine la yidhaaho inuu dhallinyaradii uu isku mehrinayo kaniisadda dhexdeeda uu dowladdii amarkeedii uu ku khilaafay ka bacdi marka madaxweynuhu wuxuu ku xukumay ninkan la yidhaaho Valentine wuxuu ku xukumay dil toogashaa in la dilo maadaama amarkii dowladda uu jebiyey oo dadkii uu isjeclaa uu isku nikaaxinayo ninkan marka waa la dilay Valentine waxaa la dilay 14 February taariikhu markuu marayay 270 14 February waa maanta oo kale ninkaa la dilay Valentine maadaama uu dadkii isku nikaaxinayo oo dadkii isjecel isku nikaaxinayo ninkaa gaalka ah ee baadariga ah gaaladu marka waxay sameeyeen waxay yidhaaheen ninkani maadaama dadkii isjeclaa uu gacan siinayey aanu taariikhdiisa xusna yidhaaheen oo 14 February waa maalintii la dilay maalin walba aanu ka dhigno maalin ciid ah oo adduunkoo dhan ciidka ah aana ku magacaawno si dadka muslimiinta ah ay maaragtaa aysan u fahmin waxaa la xusayaa maalintii jacaylka aanu nidhaaho maalintii jacaylka marka la xusayo waxay ula jeedaan jacaylka waxay ku leeyihiin Valentine ayaa jacaylka u gurmaday oo isagu gacan siiyey oo xilli jacaylkii iyo guurkii la xarimay ayuu dadka isjecel oo isku nikaaxin jiray sidaa awgeed ka magaciisu si uusan u lumin oo ilaa qiyaami saaca loo xasuusto dadaalkii uu sameeyey aanu samayno 14 February yacni sanad walba aanu xusno marka ogaada dadka muslimiinta ahow horta taariikhda Valentine halkaasay ka timid ogaada Valentine dadka yacni maalintii jacaylka xusaya waxay xusayaan ay faafinayaan ninka baadariga ah oo cadowga ilaahay ahaa ayay taariikhdiisii baahinayaan dhaqankiisiina ay baahinayaan taariikhdiisana ay dib u soo nooleynayaan sidaa awgeed marka ibnu Khaldun umamka sidiisaba waxaa lagu yaqaanaa qofku hadduu ay ku dhacdo waxaa loo yaqaano haziima nafsiya qofku hadduu naf ahaan uu ka jabo oo uu ka muraal dhaco oo muraalkiisa uu dhinto waxaa yacni lagu yaqaanaa taariikh ahaan waa muulac bitaqliid alaakhariin dad kale dhaqamo kale ayuu saarsadaa maxaa yeelay wuxuu isleeyahay waxaa lagaaga adkaaday waa dadka dhaqamadooda aadan qaadanin marka dadka Valentine xusaya ama ciida maalintii jacaylka xusaya ha ogaadaan waa dad haziima nafsiya ku dhacday oo aaminsan gaaladu inay ka wanaagsan yihiin oo naf ahaan iyo qalbi ahaan iyo muraal ahaanba ka niyad jabay sidaas awgeed qofka hadduu niyad jabo wuxuu mar walbaba isku dayaa qofkii jebiyey oo ka adkaaday oo ka raayay siduu u soconayo inuu u socdo labiskiisa oo kale inuu qaato dhaqamadiisa inuu jilo oo uu matelo ayuu jeclaadaa waa dabiicad la ogyahay oo bini aadamka lagu ogyahay marka waxaa la dooni gaalada ha u jebin nafsa ahaanna qof jaban ha iska dhigin waxaa tahay qof dhaqan leh waxaa tahay qof diin leh waxaa tahay qof sharaf leh sharaftaada iyo diintaada iyo karaamadaada ilaasho gaalku adigu ha kugu daydo adiga ha kugu soo hanuuno adiga u noqo gaalka moodhal uu majeersado oo kugu daydo noqo
laakiin gaalkii adigu indhaha ha u taaginoo gaalkaa xun ee cadowga ilaahay ah adigu indhaha ha u taaginoo dhaqamadiisa ha jilin. intaas ayaan rabaa kelimadeydii aan kusoo gaabiyo. waxaana uga digayaa dadka hoteelada iskale iyo dadka ganacsatada ah iyo dadka mas-uuliyiinta ah in ay maaragtay fasaxaan barnaamijkaasoo hoteeladooda yaysan u ogolaanin waa arrin sharciga islaamka aan ku bannaanayn. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.